بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وأحمد جلو برنامج كان يعني إذن حريري دونا برنامج كان أما حفلة داني ضد كان صومالية قيمها هي مارتي شرفت كل برشة الصومالية النرويج وحن هل كان السجون نمد سو دوينتا ورياها تي في قرن كأما قف كري هير قرن مقالن أوصلنا قبل جوجا أو حسن سعيد إن كل سو دوينه ما دام الميزان هي مقع برشة الصومالية النرويج كل أويه mid labaad oo mataqaana xafladani ku soo beegantayna soo dhaweynta xilligan aswanimaana waxay tahay maadaama wadankii Soomaaliya oo muddo ugu dambeysay uu tagay dabcan warbixino kala duwan oo mataqaana dad fara badan ay daneynayeen inay maqlaan ama wadanka ay ka ogaadaan uu hayo waxaan isniri bal ama gogol noocaan oo kala ama xaflad noocaan oo kala ma la isugu yimaada oo ay bulshadu ay waxa ay rabaan ama warbixinta ay ka dhageystaan su'aalaha ay wadanka ay ka daneynayaan ay ka dhageystaan ujeedada xafladan waa sidaas soo dhawaada marka hore markii maartay meel ama madal ama xaflad la isugu yimaado waxa wanaagsan in lagu furto ayadaha quraan kariimka waxa noo akhrinaya wariye midnimo billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmanir rahiim wat-tiini waz-zaytuun wa duuri siiniin wa hadha al-balad al-amiin laqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين aad iyo aad ayuu mahadsan yahay midnimo ayadahaasi quraan kariimka ilaahay nagu anfaco waxa la yiraahdaa markii maaragtay xaflad ama program la isugu yimaanay qof bumba maaragtay shaqada ama hawshu mar walba bilaaba ama ay maskaxdiisa ka soo baxda Cabduqani Abu Kaate ayuu ahaa qofkii maaragtay fikirka iyo maskaxda ka timid isla markaana yiri warniyo Soomaali fara badan baa na weydiinaya xasan raasta iyo wixii warbixin oo Soomaali kala yimid soo ma haboona inaan wariyaha inaan mataqaana aan program noocaas aan ku soo dhaweynayno wixii warbixin aan ka dhigsan sameeyno waanu la qaadanay asaga baa waxaan oo sheegi doonaa ujeedka iyo maaragtay wixii la isugu yimid iyo maaragtay warbixinta guud oo marka programkan ku saabsan haduu la yiraahdo oo kaata Cabduqani ku soo dhaweynaa Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idin salaam dhamaantiin soo dhawaada runantii muhiimadu waxay aad ninkan Xasan Saciid Xasan Rasto wada taqaanaan dhamaantiin oo nin aad qaali u ah hawl aad u badan Soomaalida noor u qabtay dhamaanteen aan la wada socono qof qaba karna oo hawshiisa aad u yarahay marka waa nin aad qaali noogu ah community-geena sidaas darteedna aniga si saaxiibana aan si gaar ah ahayn kulay 20 sano u dambeysay marka kulligiin waa soo dhaweynaa muhiimadan waxay tahay inaan ka wareysano wixii wadday kala soo kulmay especially kafta yaraan ku daray waliba madaxweynahana way is arkeen marka madaxweynahana aad inta uga taageernay marka anu waxaan isleeyahay safiira la kaga soo dhigi doonaa maadaama nin wax gala oo aad u qiimo badan u yahay runtiina ma taqaana dadka inta badan laga dhixin marka walaalkan soo dhawow dadka way ku jecel yihiin magaalada intaan ma laakiin in badan oo qiimo badan caaw ku imaatay marka waa salaamantiin kulligeen assalaamu alaykum bismillaahir rahmaanir rahiim akhyaarta soo qaban qaafisay kulankan cashada ah iyo iswaraysiga inteena ka soo qayb gashay iyo qofka kulanka ah ku saabsan yahay oo wariyaheena qaaliga Xasan Rasto waa salaamantiin salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh runtii sharaf weyn bay noo tahay in Xasan nagu soo noqdo marar badan ayuu meeshan war badan nooga diray oo wanaagsan marka inuu xaggana war nooga keeno ayaan ka sugeynay marka dabcan teemaha isaga baa noo mataqaana noo sheegi doona waxyaabo wadanka kala soo kulmay dabcan waxaa jira dad badan oo aan nasiib u helin inay wadanka ku noqdaan sanadii ugu dameeyay marka iyaga laftooda in Xasan uu sawir dhaba ka siiyo waxa uu ku soo arkay wixii markii hore maskaxiisa ku jiray iyo reality-ga sida uu yahay not at least wax uu rajaynayo sida wadanku noqon doono anigu dhowr baan tagay anigoo runtii markii koowaad qarax la igu salaamay oo airport-kan oo ka degay oo qarax dhacay laakiin geesnimo un ba ka sii qaaday maalintii dambe hotel anagoo joogna waxa agtiisa qarax ka dhacay waa biri baan ugu soo daatay
marka isma taagin markaas ma taqaanaa baan qaraar qaataybo marka dadka aan wadanka teginin waan kula talinayaa inay tagaan wax badan oo wanaag ah ka jira horumar badan baa ka jira dhiirigelin badan bay u baahan tahay Soomaalidu inaynaan yaraysanin waxa aan contribution kan geysan karno mid aqooneed mid talo mid dhaqaale la soo arko ugu yaraan wax badan bay ka bedelaan marka Xasan war badan baan ka sugeynaa anigu wala kaftan waxaan ku waad soo degdegteen iyo hadda waxaan ka sugeynaa inaad garoowe iyo mataqana xagaas bay ka shidan tahay inaad fasax ku darsatid bay ahayd marka laakiin at least waxaan rajaynayaa inuu u noqdo inspiration in badan oo naga mid ah markuu warka guudna siiyo anigu waan tagay laakiin I'm not journalist marka isagu xogada waa journalist xog uris badan buu sameeynaya marka inuu xog badan naga siiyo wadanka sida uu yahay sida mataqaana wax uu arko marka aan hadal ku dheeraanaynin mar kale ayaan u mahadinayaa khiyaartii soo agaasintay kulanka waxaan rajaynayaa inaan waqti u helo inaan su'aalo badan weydiino si fiican aan u maskax maalo waadna mahadsantihiin السلام عليكم دمانتين aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan u mahadnaqayaa gudidii soo qaban qaabsay soo dhaweynta Xasan kulay anigu fagaarahan oo kale waa igu cusub yahay waxa laga yaabaa inaan nervous noqdo raalli hada oo ma aragtay inta markii ugu horeysay aan meelahan oo kale ka yara hadlo Xasan waa kulli qof ay ummaddu wada garanayso Xasan waxa weeyaan shakhsi kulay ummadda Norway wax badan u qabtay markay noqoto waraysi shay baadhis yani uu ka keeno ka soo tabiyo wararka oo dhan waxay ummadda bulshada Soomaalidu u baahan tahay marka dhammaan Xasan waa walow anigu aan dhowr jeer kala soo hadlay adoo wadankii joogay inuu ka soo yara wada xiriirnay haddana waa habboon tahay in la isxoog wareysado way fiican tahay inaad nooga dhiibto xaqiiqda taala walow aad ummadana u sheegtid positive iyo negative oo wixii wacan wixii xun wax kastoo yaala aad sida tahay aad nooga uga jawaabto waan shakhsi ahaan waan iyo ku soo dhaw wadankaagi kuleeto ma garanayo ku soo dhaweyn lagu yiraahdo laakiin haddana ku soo dhaw Xasan aad bad mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacayga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Xuseen Dhore waxaan ka imid magaalada Tromso waxaan u imid inaan ka qayb galo xafladan caawa halkan ka dhacayso lagu soo dhaweynayo wariye Xasan Saciid Xasan Rasta halkaasoo aan ku leeyahay guud oo qof Soomaaliya meesha ku dhigtay oo caafimaad istiraatiiji oo dhacay qaado wiilooyin oo aan wax dhaqaalaha weydiin lagala qayb galay guudkii kadibna waxaa dhacday in isbitaalka jaamacadda Tromso iyo hay'adda la yiraahdo CFTR ay siiyeen shahaado sharaf iyo ijaazo weyn oo aad u qiimo leh oo noqday wariyihii ugu fiicnaa sanadkaas ee dalka Norway khaasatan Soomaalida waa nin dhinaceena Tromso qiimo weyn kale aad iyo aad aan u qadarin waxyaalo fara badan nagala qayb qaatay ha noqoto duub ha noqoto guur ha noqoto dad xawd laga qaaday wax walba nagala qayb galay aad iyo aadna aan u qiimeeyay waxaan aad ugu faraxsanahay inaad dib noogu soo laabato Xasan welcome to back anigu waxaan ahay gudoomiyaha hay'adda CFTR waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka jaamacadda Norway hay'adduna waxay ka shaqeysaa Soomaaliya iyo Kenya run ahaantiina waxaan ku rajo weynahay Xasan inuu nagala shaqeyn doono waxyaalo fara badan oo baahi badan u qabno runtiina waa wariyaasha ka mid ah dalka Norway qiimaha leh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad nagala qayb gasho xafladan kulligiina baan salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi soo noqdo wanaagsan waxaan faraxsanahay inaan kasoo qayb galay cashada iyo cashooyinka fara badan
يعني muuqaaga iyo magacaaga siduu leeyahay anaguna noogu qaadaysan markaa faraxsanahay aniga gaar ahaan yani xafladan way iigu qaali ayay u tahay 20 sano ma arag dalkayga hooyo waxaan ka mid ahaa dadka ilowga faraha badan u qabo dhiirigelin ayay ii noqotay markuu xasan tegey yani meelo meesha qurux badan tahay noo soo duubay yani siduu wadanka ugu damaashaadayay waxaan ka qaaday kalsooni iyo ilowgayga iyo dhiirigelin aan helay marka insha Allah waxaan rajeynayaa markii isbedel inaan tago aan sidii xasan ugu soo damaashaa insha Allah الله حسن صندوق الله وبركاته أنا هالك عاوز أقول لمالي عشان شرف لو سمي سعيدكي حسن سعيد حسن راستا الله ينهاي سعيد كان ويلكم باك سو سفري بكل سوماليا أنا واحد سوقي نواصي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أنت كسوق بشعاوة عزومتنا حفلة ير لو سمي حسن وعند لنا سود وهذا رأي أصل كل وقت قناة حسن كالنت أو كلي يوحى وقبتي دمان. هيا dadka ka soo qayb galay xafladan talabaad marka la dhaho xasan rasto marka la dhaho xasan saciid xasan rasto marka la dhinaca saxaafadda waxaan weynahayaa qofkii ugu horeeyay raadiga ka wada shaqeeya ayaa wada ahayn sax anaa ku saxay xasan laba arrimood ayaa runtii aniga shakhsiyadeeda aan ku xasuustaa runtii horta nasiib ayaa leedahay inaad waddanka ay tagtid maalintii aad baxday isla maalintii ku xigtay anoo garoon la dhex lugeynayo dad badan baa ay kaa weydiiyey warrinkii xasan waa tegay adama baxdi cabdiqani ka mid ah ninka dhalinyarada ka mid ah marka wax fiican weeye qofka inuu inta baxo dalkiisa soo eego oo waqti ku soo qaata sharaf weeye waxaan ogaaday maalintaasi qiimaha uu xasan uu leeyahay maalintaas ayaan ogaaday anoo hore ogaa inuu qiimo leeyahay sababtoo ah raadiyaan ka wada shaqeynaynay laba raadiyaan ka wada shaqeynay barnaamij saaraan soo ahaa barnaamijyo oo saari jiray xiriiri ayaan ahaa raadiyaha barnaamij baan ka wada qayb galnay qof wuxuu ii ahaa dee saaxiib iyo walaal buu ii ahaa ii dhow dhinac walbaba markay tahay dhinaca caawin iyo markay tahay dhinaca macnaha barnaamijyada wax walba iga caawin jiray iyo qaabka barnaamijyada loo sameeyo wax dhan wax badan baa runtii aan kolley ka bartay maalintaas waxaa ogaaday xasan markuu muqdisho tegey dad badan i weydiiyeen ninkii xasanaa xagguu tegey waxaan dhahay sharaf weeye adina goorma tegaysaa dadku inta badan waxay dhahaan wariye noori u shaqeey laakiin anigu waxaan ahay wariye Soomaaliya madax banaan baan ahay noori uma shaqeeyo dowladda Soomaaliya ma shaqeeyo laakiin wariye madax banaan baan ahay laakiin raadiyaha dowladda noori iska leh waan jeclaan lahaa mustaqbalka meesha aan hiigsanayo waxaa weeye inaan raadiga bulsho marka shaqeeyo xasan maalintii raadiyaha oo bilaabaynay kamid aan ku yiri waxay ahayd wariyahaas dibin laakiin maanta waxaan cadeynayaa in xasan meeshii aan la rabin inuu gaaray kow aniga Soomaaliya mar hore igu dambeysay waa ninkii inta score ilaa goolka dhaliyay muusha tagay xaq ka soo hadlay talabaadna waxa weeye si fiican waliba qaaci loo garaacay waliba talabaad tagitaanka xaq uu tagay ka sokow xasan dhiirigelin baa u noqotay anigu waxa weeye marka waan dhowr jeer waan wacay oo la hadlay waxaan ku yiri niyo hadda wariyo wada ahaan bal marka adigu wasiir noo soo laabo ama xilbaan wax un soo qaado intaas kortan ee asal ka laakiin talooyinkaasi waxa kamid ahayd inuu aad isku ilaaliyo maadaama meesha qarax ka dhacayo talooyinkaasi waxay ahayd in meesha raadiyo muqdisho uu ana maxay uu ka dhaxmo ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynayaa almas tahay waxaan kusoo gabagabeynayaa laba mid kusoo gabagabeynayaa xasan meesha la rabto waa gaaray ko rahmatullahi wa barakatuh magaaladan joogo aslami horta waxaan mooday masharci Norwegian kama laga celiyay wax fiican waaye qof ma arkay magaaladiisa inta soo noqday lagu soo dhaweeyo sharaf ay tahay inta mas'uul iyo dhalinyaro iyo asxaab isugu timid dabcan dadkan wax badan baan deganaa inta badanna meesha wax laga duubaa inaa taagnaan jiro wararka duubi jiray soo dhaweentana qof kale fadhin jiro aan dalkan si qurux badan aan ugu soo dhaweyno ama Soomaaliya ka yimaado dalalkan aniga sharaf bay tahay inaan kursiga caawa fadhiyo oo khudbadaas aan dhageysto la yiraahdo xasan welcome back magaalada deganeed iyo dadka ku soo dhawow waxyaalaha farxadii sii gelinayeen waxay tahay hadallada dadka ay dhahayaan oo ay leeyihiin dalkan inaad wax badan ka qabanayso sababtoo ah qofka noolaha waxa weeyaan waxa loo noolyahay kaliya ma aha wax la cuno in wax la qabto wax la taro dadkiisa iyo dalkiisa waxaan ogaaday marka
6 sano 7 sano ugu dambeysay shaqada ahay inay tahay shaqo ummadda aan u hayn oo aysan khaas ii ahayn oo markaas ay tahay mid la igu ogaa waxaan qabanayay walow aan mishaar aan ku qaadanayn haddana inaan xoogayga iyo kartidayda iyo Soomaalida aan dalkayga geliyay cadeymahaas waxaan helay markaan halkan ka tagay oo aan Soomaaliya tagay soo dhaweyntii la sameeyay magaalada Muqdisho waxay ugu dambeysay waqti aad u fog taariikhda ma xasuusto waqti dheer way kullay markaan tagay cid si gooni ah ama ehel igu ahayd ama qaraabo igu ahayd magaalada degan oo aan wacay ma jirin laakiin waxaan ku tagay state visit amal qof Soomaaliyeed oo dalkii Soomaaliya isagoo dibadda jooga ka shaqeeyay oo la soo dhaweynayo oo dad mas'uuliyiin oo wax garada oo dalkii maamulkiisa hayo oo madaxweynaha ugu sarreeyay aan ugu tago ku soo salaamay cid kastana wasaaraddeedii iyo dadka madaxda waxay lahaayeen nin Soomaaliyeed oo qaran ah tahay dabcan isma naqaano intooda badan dadaan warbaahinta isku naqaano ku xirinay aynu ku wada shaqeyno waxaan dareemay inaan walaalo ku leeyahay meeshaas si guudna la igu soo dhaweeyay oo la igu marti qaaday oo la igu sharfay haddaan u soo noqdo safarka iyo aragtida aan ka qabo Soomaaliya iyo caasimadda Soomaaliya caasimadda ugu weyn tirada dadka ugu badan oo deganna 3 milyan dad lagu sheegay inay leeyihiin 3 milyan ka codkooda mooda gaarin laakiin meelo badan oo muuqday oo qarsoonaa waan maray fikradda aan ka qabay inuu wariye qaran oo halkan jooga waa ka duwaneed intaan tegay waxaan ka aaminsanaa in meel mugdi ay tahay waa meel iftiina Muqdisho waxaan aaminsanaa dadku inay aad u foolxun yihiin waa dadka adduunka ugu qurxoon waxaan aaminsanaa xeebaha inay qashin yihiin waxaan soo ogaaday xeebaha ugu qurxoon aan leenahay waxaan ogaaday dalka inuu fakhri yahay la sheegaa inay dadku niyadda iyo qalbiga taajir ka yihiin oo qurxoon yihiin waxaan ogaaday in dadka Soomaaliyeed guud ahaan kuwa dalka jooga iyo dibadda ay ka siman tahay inay wadankooda jecel yihiin dadka degan magaalada Muqdisho sida goonida aan u arkay ee shacabka marka mas'uuliyiinta laga tago intooda badan waxay lahaayeen iska joog meesha aan ka ibi oo dunid hore u marsan oo aan ka shaqeysto oo deganahay oo qoys ku leeyahay oo ku noolahay oo ku qurxoonahay marka xagga tago la yiri iska joog waxaan dareemay dadkaas inay nolol fiican haystaan dhib iska jiro mugdi ha jiro qaraxyahaas ka dhacaan meel kasta ka dhacaan inay niyadooda iyo qalbigooda wanaagsan yahay oo aniga iyo qurbo ka tagay oo nin nool oo socdo oo labisan oo booqasho iyagu ugu tagay igu yiraahdaan waxa ka noqonin halkan iska joog waxaan dareemay inaan dal leeyahay waxyaalaha ugu cajiibka badan waxay ahayd dadka markaan cusbaa maalmihii ugu horreysay waxaan dhahayay caasimadan iyo dalkan waa qurxoon yahay gabdhaha dalkan waa qurxoon yihiin telefoon numberkaanaan furtay marka dadku waxay lahaayeen dalku waa dalkaagii de marka qurbo joogto sanado badan aad joogto waxa aaminaysaa man inaan dal lahayn marka Kenya marka tagtay Soomaaliya soo kamid waxa leedahay telefoonka dalkan ma furatay gabdhahan dalka waa qurxoon yihiin dadkaas waa qurxoon yihiin dalkan waa qurux badan yahay magaaladan waa qurxoon tahay waxyaala saas sheegaysa marka rehabilitation la ismay this is your country hada iskale dadka sheegaysa qurxoon waa dadkaagii caasimadda waa caasimadaadii wax badan oo aan noocaas liiga dhajay marka aniga nafkay waxaan u baahday in rehabilitation lagu sameeyo oo qurbo joognimada laga baabiyo la yiraahdo welcome back doctora kugu dambeysay laakiin caradan adaan anyway reer Norway ahaan markaan u hadlo dal waxaan joognaa dhib badan Soomaalidu ku dhiban tahay qaxooti lagu yahay warbixino badan baan dalkan ka gudbiyay oo ku saabsan Soomaalida iyo dhibka haysta iyo carruur qaadashada iyo sharciyada iyo celinta iyo dhibka halkan ku haysta anoo sidii og marka xagga tagay waa kala sheekaystay qaybo ka mid ah mas'uuliyiinta dalka waa weydiiyay dhibkan haysta laakiin qof kasta oo aan la hadlo mas'uul ah heer sare iyo heer hooseba wuxuu ii sheegayay markastana iigu jawaabayay wanaagga dalkeena ka socda iyo horumarka dalka ka socda kuma mashquulsaneen qof halkan laga soo celiyay oo noloshiisa Soomaaliya lagu soo celiyay iyagu kuma mashquulsaneen sababtoo intooda badan qurbo joog baahan iyaga noqdo dabcan document bay wataan laakiin nolol in la heli karo bay ii sharxayeen anoo taas fahamsan baan horta dalkii in badan oo kamid ah dalkii la sheekaystay oo dhibka halkan uga sheekeeyay laakiin waxa la ii sheegay qof kasta inuu dal leeyahay dalkaas Norwayna ayna caawiyaan haddii sharcigooda uu noocaas yahay hadda waa in loogu dulqaato wixii dawlad ahaan laga qaban karaan in laga qabto qofka xuquuqdiisii aan lagu tuman oo taqaanaa lala socdo oo dib loo geysan maraan soo noqonayo halkan soo wacay dadka Soomaaliyeed inta degan way weydiiyeen waxay yiraahdeen dadka markay Muqdisho tagaan ama Soomaaliya tagaan xilal bay raadiyaan oo xil bay soo qaataan ama waxba dhaca dabcan anigu xil waa bahay marka hore
marka halkan ka tegaya xil baan hayay wakiilka warbaahinta qaranka ee dalka Norway ahaa dad Soomaaliyeed halkan deganaan mas'uul ka ahaa warkoodii iyo barnaamijyada gudbinayay marka anoo isu haystay inaan xil haysto horta meesha tegay waa jirta in aan ka hadlay inaan xeelal kale tartiibina intaas ka badan tahay si gudbo hawshaasna kulli waa lagu maqan yahay waa hagaagaysaa Soomaaliya dalalka caalamka isbarada ku leedahay Norway kuma jirto dad bay weydiiyay qaar baa safiirkii ugu yeeray waxaan dareemaa marka safiir in looga baahan yahay dalkan in la keeno waa kala hadlay safiirka Belgium jooga waa kala hadlay arrimaha hadda baasaboorada loo baahan yahay Soomaalida baasaboorada soo qaata la yiri wuxuu ii sheegay in arrintaas uu ka qabanayo si dhaqso badan ama halkan hal yimaado ama tiro badan inta la raadiyo baasaboorada in loo dhameeyo dadka Soomaaliyeed ee qaxootiga kuwa Norwayna anoon kulli uma baran in la soo dhaweeyo khudbadeeyo laakiin dalkayga iyo dadkayga waa soo jeclaaday waana jeclahay inaan dib ugu noqdo haddana waa in la jooga hadii Allah wada la yiraahdo dalkayga baan joogaa dadkayga la jooga soo dhaweyn oo dalka lagu soo dhaweynayay waa idin ka qaabilay waana wada shaqeynaynaa si Soomaalinimo leh waxaana idin kula dardaarmayaa qofkii dalka sida saxiibta ay u sheegto tiroktor ay ugu dambeeyso marka arkay quruxda iyo xayaabaha iyo dadka ku soo dhaweeyay marka arkay waa ka sii daran tahay inuu gabar qurxan baatay aad baa lagu soo dhaweeyay marka waxaan leeyahay dalka la ogaado dadka la ogaado dhibkoo jira caasimadda waa qurux badan tahay xeebo badan baa ku yaala ninkii odaga hadda hadlay saxiibkii wuxuu yiri Xuseen Cawd inuu joogo ma qaal wuxuu yiri waxyaalaha positive iyo negative positive kale loo sheegay negative noo sheeg waa jiraan Soomaaliya dhibaato badan oo ka jirto hadda argagixisadu waxay ku soo hartay inay qarax dad la beegtaan inta badan dadka shacabka ay ku dhamaadaan oo markii hore waxa la arkaa dadka shacabka ay laayaan oo madaxda ka leexdaan meel ay u maraan ay waayaan moogtahay marka heerka argagixisay hadda Soomaaliya ku sugan tahay waxa la dhihi karaa caalamka kala siman tahay sababtoo ah qaraxda Paris buu ka dhacaa Belgium buu ka dhacaa meelo badan buu ka dhacaa dadaal badanna waa lagu jiraa muqdisho hadda marto ciidamada taagan jidka wiilasha dhalinyarada ee hooysan ku weydiinaya ID-ga wadatay qofka tahay marka aad aragto waxaad dareemaysaa in dalku dib u soo noqonayo oo mustaqbalka dalku uu dhismayo marka been kama sheegayo qaraxyo waa jiraan waa dhacaan umad Soomaaliyeed waa la gumaada waxaana gumaada dadkaas argagixisada ah oo aan u aabayeelin caruur iyo ciroole iyo dumar iyo haween iyo madax waxaan u aabayeelin marka taasna waa wax lagu jiro dadaalkeedii waxaan leeyahay guuleysta khudbad badan kuma hayo meesha waa mahadsantiin inta ay soo dhaweyseen dalkii iyo dadkiiba waa nabad intaan ka soo arkay samarka xilliga la gaaray dalkan laga baxay dalka dibadaha la kala aadana waxaan aniga aan bifaalning ama kula talinayaa in tigidhka Turkish Airways la goosto oo la tago kaliya muqdisho maahay gobolada dalkana la tago dhul badan oo Soomaalida leedahay la soo booqdo dhiirigelin la sameeyo carruuraha lagu celiyo oo Soomaaliya ku bartaan oo dhaqan ku bartaan waana isla joognaa aad waa u mahadsantihiin intii casimadan ay samaysay xafladan iyo وانا ما سنتي والله لا ادب ما سنتي